wacan wanaagsan idil ahaantiinba khiyaarta hawada nagala xidhiidha email kaste oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteena faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena diiradda ku saari doonaa qodobo xiiso badan oo ay ka mid yihiin dowladda deegaanka Soomaalida ayaa la tilmaamayaa inay ka dileecaan maleeshiya beelaad kuwaasi oo deegaan walba ama gobol walba ama qabiil walba ay deegaanadooda ku urursanayaan maleeshiya beeleed waxaana maalintii shalay duleedka magaalada aan idhaahdee ambaba tuulada Laasdhan Kayre ay ku dhaawaceen laba qof oo la tilmaamay in ay xataa baadhitaan ay ugu dareen waxaa kaloo daawadayaal barnaamijkeena aan ku maqli doonaa dowladda Ethiopia ayaa casuumaad rasmi ah u fiirsay garaadada ku sugan magaalada Laascaanood waxaana la rajaynayaa saacadaha soo socda inay u duuli doonaan magaalada Addis Ababa halkaasi oo la filayo shir ballaaran inuu ka furmi doono dhanka kale Somaliland ayaa ku eedeysay dowladda deegaanka Soomaalida in tiradii ugu badnayd ee ciidamada liyu booliska ay ka qayb qaadanayeen dagaalada ka holcahayeen dhawaalaba magaalada Laascaanood iyo duleedkeeda dowladda deegaanka Soomaalida ayaa sidoo kale la tilmaamayaa inay ka jirto abaar xoogan gobolka Daawo taasi oo wasiirka warfaafinta uu beeniyay in ay ku dhufatay gobolka Daawo inkastoo laga soo duubay muuqaalo muujinaya in ay xataa ugaadhi oo farfadhida caato iyo dhibaatada ka jirta darteed laga soo duubay muuqaalo muujinaya abaarta baaxadda leh ee ka jirta dowladda deegaanka Soomaalida daawadayaal waxaan barnaamijkeena ka maqnaan doonin hadduu rabbi idmo kooxda al-shabaab ayaa la tilmaamayaa ee ka dagaalanta koonfurta Soomaaliya in ay doonayaan in xogaagii baaqiga ah ee kaga haray gobolada dhexe waa galgaduud in ay doonayaan inay u boqolaan Jubbaland iyo deegaanadaasi ambaba koonfurta Soomaaliya waxaana laga warhelay Cali Dheere oo wata ilaa iyo 500 oo nin oo u dagaalamaya kooxda al-shabaab inay u galbin doonaan deegaanadaasi waxaana la tilmaamayaa in dowladdu ay dagaalo xoogan ku qaadi doonto Cali Dheere ha u boqolahay deegaanadaasi qodobo kale ayaa inoo raaci doona barnaamijkeena waxaana barnaamijka ku bilaabi doonaa hadduu alla idmo labada saaxiib ee waa ninka lagu magacaabo Bidhaan iyo Shide oo inta badan ka faalooday xaaladii ugu dambeeyay ee Geeska Afrika balse waxaan ku horeynaynaa odayaal dhaqameedka loogu yeeray magaalada Addis Ababa ee RSC ayaan ku bilaabi doonaa waxaana barnaamijka aan ku soo dhaweynayaa saaxiibkay Shide maxaa ugu dambeeyay aad iyo aad baad u mahadsantahay Farogodow haddaan ku bilowno casuumaadda rasmiga ah ee dowladda Ethiopia ay siisay madaxda SSC ama oday dhaqameedyada hogaaminaya dagaalka culus ee ka soconaya magaalada Laascaanood ee caasimadda gobolka Sool ee moodidii inuu marka ka dambayso uu waji yeelanayo ayadoo Somaliland ana wali laga haynin meel ay ku sheegtay inay gobolkaasi guud ahaanba ay ka baxayso colaaduna aad moodid mar kale in si weyn seefta galka loogala baxayo loogaganna ay wadaan abaabul aad u culus ciidamaduna wali iyo gurmadka iyo taageerayaasha SSC-na ay si xawli ugu soo socdaan ama ay soo galayaan magaalada Laascaanood ayaa haddana dowladda Ethiopia oo ahayd dowladdii ay midowga Afrika ay u igmadeen inay Laascaanood xal waara ka keento oo dhawaana sidii la wada ogsoonaaba ay hay'adda sirdoonka iyo ciidanka militariga Ethiopia saraakiil ka soconaya ay la soo kulmeen Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Somaliland iyo xogaga SSC ayuu moodo guud ahaanba baaqyadii ay saraakiishaasi geeyeen iyo waxyaabihii ay la soo galeen inaan meeshii laga qaadin qolo walbana ay meesheedii ay birta kasii calishanayso lagana baqayo saacad kasta inuu dagaal qarxi doono kii kala baxa ama kii qolo un lagu qusgoyn lahaa ayadoo Somaliland ay halkaasi ay soo dhoobayso marka ka dambayso kumanaan ciidankeeda kaydka ay ku doonayso Laascaanood inay ku soo afjarto xogagan SSC-na ayaguna markasta ay sii wadaan abaabulka iyo dhalinyarada dhiirigelinta iyo ciidamada markasta soo gaaraya ayay dowladda Ethiopia wali waxay ku baaqaysaa inaan meeshaas ay xabad ka dhicin Somaliland ay ciidamadeeda meesha kala baxdo SSC-na ayna talaabo ayna qaadan ama ciidamadaasi ku sugan duleedka Laascaanood iyo xeriyihii ee dagaalada culus ee ka soconayay sida Gooja Cadde inayna marnana weeran ayadoo arintaas ay dowladda Ethiopia ka duulayso ayaa waxay soo saartay in ay martiqaad u fidisay xogaga SSC iyo garaadada si looga wada hadlo xaaladda guud ee Laascaanood iyo dowladda Ethiopia waxyaabaha ay halkaasi ay u qorshaysay iyo qaabka ay rabto in loo hirgeliyo heshiiska Somaliland iyo SSC colaadana qaabkii loo soo afjari lahaa marka xogaga SSC wali meena ka soo jawaabin inay martiqaadka rasmiga ee dowladda Ethiopia ee Addis Ababa lagu casuumay inay tagi doonaan ayadoo ay xogaha sida SSC ay sheegayaan taageerayaasha SSC inuu yahay waxaan shirqool SSC loo dhigay oo garaadadan markii xagga la geeyo maadaama garaadadu ay dhiiri gelinayaan ciidamada iyo dhalinyarada oo leeyahay dagaalama naftiina u hor xoreysta dalkiina laga baqay markii xagga la geeyo odayaasha in Somaliland meesha gala la dhaho
oo inqilaab meeshaasi ka dhaco iyadoo weli dagaalyahanno badan halkaasi ay ku sugan yihiin. waad mahadsantahay marka odayaashan goormay u anbabaxayaan magaalada Addis Ababa bal warkaasi nooga dhac odayaashan waxaa la filayaa saacadaha soo socda inay jawaab ka bixiyaan. Ethiopia waxay sheegtay odayaashan inay martiqaad u fidisay inay kala shiraysa Laascaanood meeshii Laascaanood tallaabada la qaadi lahaa ayagii Soomaaliya qaabkii la isku horfadhiisin lahaa marka hore ay dowladda Ethiopia ay kuwan ay soo hormarisay SSC-da Somaliland ayadana marka dambe inay wici doonto ay u badan tahay sababta Ethiopia ayaa loo igmaday inay xal waara ay Laascaanood ka keento. Markii garaadadan saacadaha soo socda inay gaari doonaan Addis Ababa yaa la filayaa oo dowladda Ethiopia ayaa sheegtay inay habeen maalinba u taagan tahay si aan Laascaanood in xabad dambe uga dhicin ay xal waarana ka keeni doonto. Ethiopia iyo SSC-na meesha isla tagaan iyo Somaliland waa la arki doonaa waxayna u badan tahay inay Addis Ababa la iskugu iman doono waa Somaliland iyo SSC halkaana lagu dhammayn doono heshiis ay SSC iyo Somaliland ay iskula jaan qaadaan ama midkii kala taga ay halkaas ka dhici doonto. aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaal waxay noo soo socdaa qodobo ay ka mid yihiin maleeshiyaad beeleed ka dilaacay dowlad deegaanka Soomaalida oo maalintii shalay ku dilay duleedka magaalada aan idhaahdee tuulada Laasdhankayre ilaa iyo 2 qof oo la tilmaamay inay wadadaasi marayeen. haddaba intayna qodobka guda galin waxaan rabaa qodob kale inaan ka horreysiin oo ah in ambalaasti ka shaqeynaystay 93 degmo iyo waliba 11 gobol ay isku dayasho sameeyeen oo arintaasi oo ah in nin walba ambalaasti loo dhiibay asaga iyo gudoomiyuhu ay ku ganacsadaan. arintan hal degmo iyo hal gobol daawadayaal oo cabasho ka imaanaysa ma jirto guud ahaanba waxay cabashadu ka imaanaysaa dowlad deegaanka oo idil oo la tilmaamayo in hooyada umushay iyo odayga waayeelka isbitaalka lagu gaarsiin lahaa in xataa la leeyahay lagu xiray 10,000 oo bir hadaada bixinin in ma garanaysaa aan lagu qaadin. seed u aragtaa bidhaan oo arintan والله وانا نصيب درو aad u weyn maadaama mataqaanay loo igmaday in ay ka shaqeeyaan caafimaadkii loo igmaday in dadweynaha u khadimaan inay ka ganacsanayaan gudoomiyaasha iyo waliba dadka u xil saaran dhanka caafimaadka arintaasi la rabo inay markas ay ka dhiidiyaan ambulance waxa loogu talagalay waa caawimaad weyn marka dadka deegaanka waliba dadka tuulooyinka iyo duurka fog joogo yaa waliba loogu sii talagalay in mataqaanay islaanta umusha ah iyo gabadha mataqaanay foolanaysa iyo mid ku dhigar ku soo booday midka xanuunsan iyo kulli in mataqaanay lagu soo qaado hadda waxay noqotay marka dadkii in kareeta lagu qaado hadii mataqaanay lacagta iska bixin karin way 10,000 oo bir waxay waa $100 weyn marka qof miiga joogan $100 xataa dhigata inuu sanadkii soo marinba saadaradeed marka dadkii in qofkii kareeta lagu soo qaado oo bil dhaxda ku soo jiro yaa laga yaabaa oo qofkii mataqaanay kala daatay oo wixiga in ibsaaka la keeno haduusa dhimaninba marka nasiib darro aad u xoogan way arinta ayada oo loo baahnaa in dowladda iyo Mustafa iyo dadka mataqaanay halkaas loo igmaday inay ka dhiidiyaan ganacsi buu noqday dadka dhiigoodi ambulance waxa loo leeyahay mataqaanay shitaal u baahan tahay waxaan u baahan tahay dowladda wax dhan bixisa laakiin iyaga muhiimad waxa way xataa kan wada darawalka mishaar dowladda ka qaata ambulance dowladda mataqaanay dayactiraysa shidaalkii weyleeda waxay uga baahan tahay mara kaliya waxa loo baahan dadkaas masaakiinta in loo gurmada mataqaanay loogu talagalay laakiin waxay bilaabeen markii in dadka laga ganacsado oo la lacagta qofkan keenin mataqaanay ma soconayso wili lacagta iyaga marka maramarsiya u sameeyeen oo ah darawalkii muxuu ahaa shidaalkii iyo waxaan haduu bir jabtay kulli maxaa la sameeyay lacagtaas lagu bixin baa leeyahay wax ka jira mara wuxuu dhan service-kii dowladda bixisa waxa loo baahay marka waxa way mishaar ku qaadana darawalkaasi in dadkaasi uu qaado oo u geeyo isbitaalada laakiin tii meesha laga ma hayo marka waxa loo baahay isla xisaabtan dhab ah inay dhacdo oo markasta mataqaanay xukuumaddu waxay samaysaa waxaan la xisaabtan aan la dhihin oo ah inay intaas qiimeeyaan إذا واحد واسحن يهي سامة على الوضع مايو ذاك الشعب يدل مايين شعب وحال راه قفك لقى قاعدة طبعا كون أوبر ينصفر التلفزيونات وكهضله أو ده لعيتها سن بحيي قفك أصلا كيري ساسا وقبضتي هي بقى سوق هذا فهذا حدا مش كده عليه لكن دد عن مرة هذا الله بدار وحيت الماميان ما دام واحد نظام كي هوري عبدي دتك أدو عبسي قليي إن أيسن حتى دارولك كله كرين وأرنتم واشرع الدرو أو دتك لفتيس ولا ربا إن أي مقرني سهرت أرنتم لجوا يقولوا اللي يرادو بورس meesha kuugu dhow iyo madaxda kuugu dhoweeyay yani in kastoo cadaalad meesha ka jirinba in la yiraahdo war 10,000 maxay ahayd laakiin gudoomiyihii degmada ama gudoomiyihii gobolka ayaaba la cunaya baa lagu leeyahay 10,000 ee bir wayna ku wada qayilayaan dhibaatadu meesha ka imaatay meeshaas weeyba hadii mataqaanay marba gudoomiyihii gobolka baa uu la ogyahay oo kii degmada la ogyahay ee booliska mataqaanay wax ay sheegayaan wala hamba marka taas marka waxay keenaysaa dhibaatada inay sii siyaadiso oo mataqaanay wax uu sii socdo iyo keeni
laakiin muhiimadu waxa weeye in caalamka loo gudbiyo in mataqaanaa isbitaalada dowlad deegaanka in mataqaanaa aysan ka jir wax ambalaas la yiraahdo oo dadka mataqaanaa u shaqeynayo oo ilaahay fadada mataqaanaa la gaarsiiyo waa heer gobol waxa looga qaban waa madaxweynaha wuxuu soo magacaabay gudoomiyihii mataqaanaa degmada wuxuu soo magacaabay haddii mataqaanaa bulshada u shaqeyn waayeen in la bedelo way haddii la asagu raalli ku yahay inay sidan ay sameeyaan dee wax sii soconaya mataqaanaa malaha horta barnaamijkeena aad bay dowladdu ula socotaa aad bay u dhagaysataa muhiimadda aan hadda aan barnaamijkeena aan mar walbaba aan uga hadalno dowlad deegaanka waxa weeyaan in dadka shacabka ee tabaalaysan ee deegaanada ku jira inaan nidaamka Mustafa Maxamed Cumar hogaamin inaan u ifino waana arinta aan doonayno markii loo ifiyo inay wax ka qabato waxaan rajaynaynaa haddii dowladdu toddobaadka soo socda ay wax ka bedeli weydo oo degmooyinka qaybaha caafimaadka ku shaqo intii loo yeero talaabo laga qaadi waayo dadka dhibka ku dhacay inaan wareysan doono waliba caalamka hay'adaha ku shaqo aan gaarsiin doono kaga sii daran waxa ku deeqada dawladda federaalka iyo hay'adaha caalamiga ee caafimaadka sida WHO ayaa ambalaaskan ku deeqa oo inta badan ma garanaysaa dadka tabaalaysan ee maxaan ku dhahay masaakiinta ugu deeqay qodobkaasi halkaas aan kaga baxaynaa bidhaanow dib baan kugu soo noqon doonaa arinta kale ee ah maleeshiyaadka ka dilaacay dowlad deegaanka Soomaalida maleeshiyaadka waxa la tilmaamayaa inay yihiin maleeshiyaad qabaa'il oo qolo walbaba ay urursanayso maleeshiyaad bal arinta nooga dhacshido aad iyo aad baad u mahadsantahay farogada mar kale dowlad deegaanka Soomaalida waxa ka tagan arin nasiib darro ah ka tagan oo muddo dheer arintaasi dowlad deegaanka Soomaalida dadkii u soo taagnaa inuu dowlad deegaanka noqdo deegaan loo mideysan deegaan nabada deegaan dadkan walaalaha ay ku wada noolaadaan waxaan moodaa dowladda Mustafa Maxamed Cumar gabi ahaanba in ay garan weyday waajibaadkii saaran ay shaqadeedina gabtay dowlad deegaanka Soomaalida sidii loo wada ogsoonaa wuxuu ahaan jiray meel lagu dagaalamo ay jamhadaha iyo ciidamada dowladda Itoobiya ay ku dagaalamaan hase yeeshee 4 sano ugu dambeeyay waxa la islaa deegaanka Soomaalida waa laga nastay wixii jamhadii waa laga nastay dhibaatadii waa laga midnimo iyo dowlad iyo cadaalad baa tiin baa hase yeeshee waxay noqotay ka daro dibadhan deegaanka waxa ka dilaacay jamhada beeleed qabiil kasta in uu samaysto jamhado ama dhalinyaro yar ah oo la hubeeyay oo xiriir loo sameeyay oo halka geela iyo ariga loogu qalo si ay qabiilkan u difaacaan oo ay qabiilkan danahooda iyo si ay u fuliyaan ayaa loo sameeyay ayadoo ciidankii dowlad deegaanka Soomaalida gabi ahaanba shaqadiisii laga hakiyay shaqadiisina laga joojiyay hay'adaha amniga booliska iyo ciidankii liyu booliska gabi ahaanba shaqadoodii aad moodid in laga leexiyo ama shaqadoodii ay qabanayaan hadda ciidamada qabiilada ay qabanayaan marka xaaladaas oo nasiib darro noqotay ayaa waxay ka dhacday gobolka Qorraxay iyo gobolka Shabeelle meel u dhaxaysa oo adu laanqayrta deegaanada ku hareeraysan ah halkaasi ay niman marayay oo ahaa degmadaas ama laas dhankayr iyo laas laanqayrta iyo deegaanada rag u dhashay halkaas ay ku weerareen ciidamada maleeshiyada oo maleeshiyad beeleed ah oo nooc beeleed u abaabulan marka dawladda deegaanka Soomaalida meeshii la rabay inay deegaanka Soomaalida maadaama jamhadihii iyo isku dhacyadii ay ka dhamaadeen ciidanka ammaanka sida dadkan u kala ilaalin lahaayeen ama dadkan ay u midayn lahaayeen ay ka shaqeyn lahaayeen ayaad moodaa hadda in loo sii xuubsiibanayo tii tu ka daran oo jamhadihii iyo dagaaladii ka daran oo ah inay qabiiladii ay degmo u talaabi karto jirin tuulo u talaabi karto gobol u talaabi kara jirin yaa soo socda dowlad deegaanka Soomaalida hadaan hadda laga hortagin sidoo kale waxa dhibaato ah gudoomiyaasha gobolada dariska oo nin walba uu hubeynayo qabiiladii gobolkaasi si ay qabiilka kale oo dariskiisa ugu duuli lahaayeen tusaale ahaan gobolka Qorraxay waxa moodaa guud ahaan inuu matalaad ku lahayn gobolka Qorraxay dadka ka taliya gudoomiyaha ilaa gudoomiye qabale dadka jooga dhamaantood dad matalaad gobolka Qorraxay ku jooga ma dhamaantood dadka deegaanka u dhashay inaan ahayn bad moodaa inay dalkooda iyo deegaankooda ka dhibeen sida gudoomiyaasha kale gobolada ay markas isku deeyaan in gobolkoodaasi ay ilaashadaan ama taaka kamid ah loogu soo xadgudbin yeena kuwa gobolka Qorraxay marnana deegaankooda kana gobolka Qorraxay qarka wuxuu u saaran yahay guud ahaanba in lagu kala tago yuqarku u saaran yahay gudoomiyaha gobolka ayaana marnana yaana ka hadlaynin gobolka Qorraxay xuduudaha iyo deegaanada uu leeyahay sidii ammaanka hay'adaha amniga dawladda ciidanka dawladda looga howlgelin ama u shaqeyn ama dadka deegaankaas ku nool ay ammaankooda u sugi lahaayeen ayaad moodaaba marba marka ka dambaysa in xaaladdu faraha ka sii baxayso iyadoo gobolka Qorraxay loo baahan si gaar ah in dawladdu eegto waad mahadsan tahay waxaa jira laba wasiir oo matala inta badan oo lagala xisaabtamo gobolka Qorraxay afartii sano ugu dambeysayna dagaalada iyo colaadaha ugu faraha badan wuxuu ka dhacay gobolka Qorraxay ama ha noqoto qabaa'ilka deegaan gobolka Doolo iyo gobolka Qorraxay oo la isku diray ama ha noqoto maxaan ku dhahay Dhoobaweyn iyo maxaan ku dhahay gobolka Shabeelle oo la isku diray marka laba wasiir ayaa matashay inta badan oo wasiirka ina hore lagu magacaabo iyo Maxamed Faatax marka maxaad u soo jeedinaysaa inta badan halka way naga dhageystaan dawladdu aad iyo aad bay nooga dhageystaan marka arintan shalay ka dhacday maleeshiyaadka meesha laga abuuray iyo waxaan oo idil
inkastoo laleeyahay madaxweyne mustafa ba arrintan kula socda maxaad nidaamka dowladda iyo u jeedinaysaa anigu waxaan dhihi lahaa raggaasi gobolada laga soo doorto ama raggan gobolka qoraxay matala ee gobolka qoraxay kursiga iyo nasabkooda oo dowladda ku matala in ay gobolkaasi ay si daacada ugu adeegaan sida ay hadda ku socon nimankaasi gobolka matalaad kuma leh gobolkana ma matalaan gobolkana wakiilka waa rag calooshood u shaqaystayaala oo ina cagjar uu meesha keensaday oo dadkii deegaanka lagu bahdilayo oo dadkii gobolka u dhartay u dhashay lagu guumaysanayo raggaasi hadday garanayaan gobolka ama gobolkan ay u dhasheen ama matalaad ay ku leeyihiin ama ay yihiin dadkii deegaanka u dhashay gobolkooda ayay ilaashan lahaayeen gudoomiyaha gobolka qoraxay ilaa ka wasiirka maaliyadda waxaad moodaaba gobolkan qoraxay inaan ayagu dhan has yeeshe jaabkooduna ay ka urursadaan jaabkuna ay ka buuxsadaan dadka ayagaa isku diraya ayagaa ka dambeeya ka gobolka ee lagu soo duulayo gobolada kale lagaga soo duulayo ayayna garab siinaynin ayayna ka difaacin xataa xumaanta marmar baa yaa gobolkaada lagu tahay sa gobolkaaga hadii lagu soo duulo maadaama dowlad sare haddii dowladda sare shacabkan ay ilaalin weyday adiga gobolka ee lagu doortay ee shacabkan matalay ayaa la rabaa inaad difaacdo marka ayagu shacabkoodina ma difaacaan dowladdiina garab uma dhahan gobolka nolol difaac hase yeeshee isku dirka gobolka bes ayay ka shaqeeyaan iyo kala geynta shacabka gobolkaasi ku nool gobolka duulaan baa ku socda duulaankana warkama hase yeeshee ayaga waxaa u cad ta gudaha iyo kala geynta gobolka aad iyo aad baad umahadsantihiin daawadayaal barnaamijkii qaybtii dambe ayaan soo gaadhnay waxaa jira in maamulka somalilan uu ku eedeeyay dowlad deegaanka soomaalida in ciidamadii ugu faraha badnaa muddadii dagaalka uu ka socday magaalada laascaanood iyo weliba duuleedkeedaba in ay ka qayb qaadanayeen ciidamada liyo booliska maxaad is leedahay bidhaanow arrintan runnimadeeda iyo saxnimadeeda iyo dowlad deegaanka maxaad is leedahay kaga jawaabi doonaa marka xaqiiqada laga hadlo haddii ciidan booliis soo geli lahaayeen maanta hargeysa haysan lahaayeen hay nimankan niman istaaga ma bahaba hay iyadoo xabada mataqaanaa ridayo iyo dadka qoryaha ka qaadan jireen waa garta marka waa marka xaqiiqada laga hadlo wey laakiin markii laga hadla sida somaliland waa markii labaad oo ay eedeynayso new booliska marka waxay doonaysaa in new booliska ay soo galaan dagaalka waa garta way rabtaaba waad dareemaysaa laakiin new booliska ilaahay hadda wax tilaabo ah way ka qaadeen ma jirin wax mataqaanaa xuduudka gudbay mataqaanaa ma jirin dagaalkan wuxuu ka dhexeeya keliya waa dhulbahante iyo iyaga bas mataqaanaa ka dhexeeya iyo harti usoo gurmatay keliya mataqaanaa meesha ayaa dagaalka ka dhexeeya laakiin ciidanka new booliska ee markasta ay eedeynayaan haddii mataqaanaa baasha ay qabiil ka dhigayaan dee dambi u geli doonaan waa sidaa laakiin hadda dagaal bay new bolis ku jiraan oo mataqaanaa ciid kale oo dir iyo xoreynayaan waa sidaa oo nimanka ciisaha iyo horta ka dulqaadaya mataqaanaa canfarta haysatay markay ka dulqaadaan kadib yaa kan la iskugu imaan doonaa laakiin xaqada markii laga hadlo ciidan new bolis oo meesha galay ma jirto waana markii labaad oo sidan mataqaanaa u eedeynaysa xitaa federaalka ay gaartay eedeynta oo waxaashiisa wax ka jira mana waa beentin tanna tibay la mid tahay marka eed aan soconaynin oo sal iraad aan lahayn way eedaniyada weli kamaana dhammaani waxaa jira shir ay abaabuleysay in dhawaalaba odayaasha iyo dadka qabaalkii beelaha direed ayaa abaabulayay de xaqna way u leeyihiin in ay shir qabsadaan hadday beel ahaan yihiin marka siyaasad ahaan barbar la iska dhigo inkastoo arrintan ama shirkan uu la sheegayo uu yahay shir siyaasadeed oo lagu taageerayo somaliland si ay uga guuleysato xoogaga ACC shirkan wuxuu ka dhici rabaa baa la yidhi magaalada diradhabo ma is leedahay lacag fara badanna waxaa ku bixiyay madaxweyne muuse biixi in shirkaasi lagu qabto magaalada diradhabo oo laga arsanayo sidii somaliland lagu taageeri lahaa shirka wuu qabsoomay ma is leedahay magaalada diradhabo ma qabsoomayo hay wuxuu soo qabsoomeyninba dee ciise dir wey hay ciise waa dir waa garta waa nimanka meesha dega weyaba iyo aagga ka dhow waa garta haddiiba iyaga mataqana loo hiirin waayo oo dowladaanka loogu hiirin waayo dee mataqana dowlad ka baxsan iyaga muxuaha dowladaankooda suurtagal maaha meeshan waa etoobiya halkaana waa soomaaliya marka dirtan soomaaliya ha u yeertaan nimankii mataqana biimaalkii oojidii kuwii mataqana baaka ha u yeertaan laakiin nimankan inta joogo niman mataqana etoobiyana way sharci baa qabanayo dowladaanka kamid yihiin meel lama tama dhaqan kara hadday wax sameeyaanna waa lasoo qaban ciidan nibolisa joogo suurtagal maaha aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaal qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan kusii gurguuranaynaa magaalada muqdisho iyo weliba aan muqdisho aan dhihina koonfurta soomaaliya waxaa jira doctor shidow in ninka cali dheere ahaa ay warbaahintu sheegtay inuu u kici tami rabo deegaanada jubbaland arrintan ayaa waxaa la sheegay inuu yidhi waxaan kusoo soomahayaa deegaanada ay qarahu iyo dee waad garanaysaa moosiiba ay ka buuxaan ayuu doonayaa bal inuu u gudbo reer hiiraan baa qayla dhaan afa ku dhuftay waxaa la yidhi webigii oo biyo yareeyey ayay buundo u samaysteen waxaana ka gudbaya 500 oo nin oo cali dheere u wato kuwaasi u socda dhankaas iyo Jubbaland u socda iyo waliba koonfur galbeed way sii marayaan dawladdiina qayla dhaan bay ku dhufatay sidii looga qayb qaadan lahaa dagaalkaasi arrintaasi maxaad warkaysaa arrintaas waa nasiib darro hay arrintaasi waxaa la yiri lafa doofar la sahansame maamada Soomaalida ilka doofar la sahansay marka Axmed waa la sahansaday Ismaaciil loo socda Ismaaciil la qabsaday qarku saaranta Axmed Madoobe
cadowga kusoo duulaya maarkeen dadkiisu arkaa dadkiisiibu ilaahay tus ma arka cadowga kusoo duulay ee deegaanka qabsanaya dhulkiisa dhanaa haysto axmed madoobe ceeb uma arko inuu yahay madaxweynaha keliya ee caasimadiisa laga haysto 12 sano kismaayo jooga een garanayn caasimadiisii in la haysto aan dhibba aan ku hayninba haddana maalin kasta xiriyaha ciidanka la soo weerarayo ee duleedka kismaayo ciidanka lagu leynayo ee maalinka ugu dambeysay ee ciidamada la xasuuqay waxaasoo axmed madoobe kuma hayso marka waxaan leenahay ciidamadaas waxay u socdaan axmed madoobe inaan ka qabsanaya kismaayo axmed madoobe waa inuu boodhka iska jafo waa inuu ciidamada dhaqaajiyo axmed madoobe ciidan waa haystaa hase yeeshee waxaa haysa talo xumaa haysa meesha wax ka eegay meel aan hayn ee ka jirtaa bahashu marka waxaan leenahay niyow nimankaas iska difaac gobolkaaga kusoo hadhan gobolkaaga iskugu soo urursadeen deegaanadii kalena way kasoo baxeen inta ayna ciidamada faraha badan cayaro wata ayna Jubbaland soo gaarin waa inaad inta joogta ka saarto Jubbaland oo dhan qabsada xuduudeeda aad soo xirato arrintaas talo wanaagsan taasaan kugula talinayaa haddii aan ka dhex galo siyaasiyiinta qaarkood waxay leeyihiin shidow Axmed Madoobe joogitaankiisa iyo inuu xukunka muddo dheer sii joogo waxa ka qayb qaadanaya al-shabaab deegaanada maadaama ay al-shabaab haystaan ciidamada dawladuna ayna joogin isaguna kismaayo aageeda uu haysto haddii deegaanada la xoreeyo oo caasimada Jubbaland la xoreeyo nidaam kale ayay dawladdu ku dhisi oo ka soo horjeeda Jubbaland marka arrintaas sida daradeed buu Axmed Madoobe u doonaynin inuu u xoreeyo deegaanadaas arrintan ma qabta adigu أنا أريد أسمع قبل أحمد دو أسوق أنتو حريسون واي ومعمل وأسوق وجيسون واي أما أسوق وحرون كدقون واي عاصمة قبلك أما جبل العاصمة ده مرهقة كلاي قبصن دونا أيوة ليس دور سوية قرط سوية قرط بحيثها حدي دولة الصومال وكبر غيرها خمس دولة الصومال أول وحاول أن تقبضته إن أي معمل كان يحس يجي دولة الصومال وما سعته أسوق دت كيس يبلغوا هيا أسوق دت كيس اللي دليا أسوق مالك استلوا ويريا أسوق الربع توقف صدق إنه أسوق معمل ودرسه ودولة نمو جبل لانه لود يهلك أو كدرسه لكن إنه أسوق اسماعيل جو ورهدان عدي هالكاس اللي قبته وحوا شجاس بس عنيس شيخ بس عنيس تذكر هذا مسؤولك هذا ودارتي هذا كتاب القرآن ومري هذا كوب قرب الإنسان وأنا عاصمة جبلان قبته وأنا جبلان لودني هالكاس الورثة وأنا هالكاس مركز لو قدرت لو على مساران لنا أرجع حسنا لقى صار aad iyo aad baad u mahadsantihiin daawadayaal haddii aan idiin raaciyo hal qodob kuna soo koobo wax yar waxaa la tilmaamayaa in asxaabta mucaaradka ee dalka Soomaaliya uu ugu horeeyo madaxweyne Sheekh Shariif in ay fariin adag u direen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxayna sheegeen inaysan ka aqbalaynin muddo kororsi bayaankan oo ay ku saxiixayeen guud ahaanba asxaabta mucaaradka ayaa fariintan lagu gaarsiiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dhanka dawladda deegaanka Soomaalida warkii ugu dambeeyay waxa la tilmaamayaa in gobolka Daawo ay ku dhufatay abaar xooggan midaasi oo dadka shacabku ay tilmaamayaan ugu yaraan 60 qof inay ku dhimatay gobolka Daawo inkastoo uu beeniyay wasiirka warfaafinta oo la hadlayay laanta afka Amxaariga ee BBC-da daawadayaal barnaamijkeeni faaqidaada inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa intaan dib dambe ugu kulmi doono mid kan mid labada waxaan kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo